Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal qaaliga soo dhawaada caafimaadkiina see tihiin maanta morning routine ayaan wadaa again in badan oo idinka maqlaa almost already a month I think bil dhan last month ay igu dambeysay amaleena waxaan soo post gareeyo timekayga iska qaadanaya waxaa waaye busy yaa la iska yahay iskuulka ilmaha loo fasaxay inkastoo aan ilmo badan iima joogaan gabadheeda bas ayaa iskuul aado gabadheeda kalena insha Allah markii la furo ay aadi doontaa 4 sano ayay jirtaa hadeertaan xaafadda ayay joogtaa marka iskuul ma aado only gabadheeda weyn ayaa tagto oo 6 jir ah winter break ayaa lagu jiraa almost hadda waaba lagu laaban rabaa hadduu Ilaahay yiraahdo marka quraacdan yar ayaa iska sameysaneynaa kaaliya isdhiirigelina marka shahan karsanayaa hadeertaan ana waxaan jeclahay shaha caanaha iyo isku dhex karinayo ma jecli shaha oo asmali kali intii la kariyo haddana caanaha kor looga darsanayo marax uu leeyahay waana biyo always waxaan jeclahay in caanaha iyo shaah isku kariyo shaheeni wuu noo soo karay hadda waxaan sameysanayaa aniga smoothie sameysanaya waxaan soo qaatay pineapple iyo moos iyo spinach waxaan ku sameysanayaa coconut water dhan aan ku darsanayo waa idin tusinayaa coconut water oo ku sameysan kartaa almond milk oo ku sameysan kartaa labadaba waan isticmaalaa laakiin today waxaan isticmaalayaa coconut water because coconut water waxa waaye way ku fiican tahay like waxaan ku darsanayaa kale collagen ka noocaas aan isticmaalaa haddii halkaa kasoo gatay u baahan tahana let me know waan idin sheegi karaa no problem haddaad taqaanina you already know haddaa garanaysa maba loo baahna in lagu sheego somaha laakiin haddaa garanaynin you can tell me hoos igu soo reeb I'll let you know meesha kasoo gada pineapple-kana noocaas isticmaalaya frozen waaye also bananaga hataa frozen ka dhigan jira laakiin frozen banana ma haysanin hadda kan caadiga isticmaalaya ka frozen banana ibaarka kale iyo ice isku darsatid qabow kaliya noqonayaan ice-na ma haynin today because waan ilaawayna fridge-ka geliyo bas hadda intaas isku darsanaya quraacdeedii intaas le waaye xawaaye waa ciyaalka pancake iyo waxay cunayeen lama cunin intaana ku quraacday ilaa iyo laga gaarayo duhurkii I was full wallahi masha Allah waxaan decide gareeyay inaan ku darsado protein kale oo flavorka chocolatada leh asagana gadaal ka arki doontiin very very delicious macaan miiran u ahaa maxaa haysiin videoga markaan soo gelinayo waxay noqon doontaa maalintii oo ugu dambeysay 2021 masha Allah jimcana waaye tomorrow inaan soo geliyo Friday waaye jimco wanaagsan jimco mubaarak also waxaan rabaa inaan idin dhaho happy new year sanad khayr qaba Ilaahay nooga dhigo sanadkiisa kalena Ilaahay nabad ha noogu gaarsiiyo by the time aan soo geliyo I think maxay noqonaysaa tomorrow new year's ay noqonaysaa maalinta soo gelinayo laakiin maanta markaan codka saaraya adi habeen waaye khamiistii habeen ay jimco soo galayso soo jimco mubaarak aan idin leeyahay haddana waxaan sameynayaa digsigan yarka ayaa waxaan ku karsanayaa boil egg ciyaalkayga boil egg ay jecel yihiin marka hore subaxdii hore waa kasoo horkici jiray laakiin saaka isku maraan soo kacanay mami baayaan haysa la dhahay marka waxaa sameeyay digsigan aan ku karsanayaa ukunta dhaqso uu ku karinayaa intaan pancake iyo waxa uu sameynayo ukuntana way diyaar u noqonaysaa kadibna waxooda hal mar le aan wada siin doonaa hadii la yiraahdo
always iskuulka markuu jiro hataa subaxdii gabadheeda inta diyaarinayo madaxa u hagaajinayo ayaan ukunta kusii ritaa kadibna diyaar baa noqonayaaba. bas haddana birtaaneyto ayaan sii kululeysanaya. pancake ana rabaa inaan u dubo insha Allah, waayo pancake jecel yihiin more than canjeerada. anaga always mala wax ayaan duwanaa, laakiin ayaga waxay ka jecel yihiin pancake iyo waffles iyo waxyaalahaas lemogi. canjeero aad uma jeclo, marka that's why always pancake ayaan sameynaa I think badanaa. bas pancake anita ayaan duwanayaa kadibna maalinteeda sida ay noqoto waa arki doontiin. marka caafimaadkeena ka warama maxaa haysiin videogan markaa soo gelinayo beritoole maalintii oo sanadka ugu dambeysa waaye. ilaahay sanadkan soo socda sanad kheyr qaba nooga dhigo. cudurkiina aad u kacay ilaahay dadka dhinaca ka mariyo. waxaa waaye very scary meeshii oo maxaa la dhahaa laga sii bixi lahaa wuu sii badanayaa sanad 2022 waxaa la dhahaa waxaan u maleynayna inuu naga dhamaanayo but I don't think so, wuu sii badanayaa le. marka shartiisa ilaahay hana dhaafiyo sanadkan soo socdo shartiisa ilaahay dhinaca naga mariyo khayrkiisana ilaahay na siiyo amiin. marka maxaa idin qorshaysaan sanadkan, maxaa rabtiin inaad sameysiin? if you don't mind hadda ila share gareyn kartid kaasa. marka haddana waxaan sameysanaynaa turkey bacon waaye. gabadheeda yartahay aad u jecel, maxaa la dhahaa labadeeda gabdhood ma jecla laakiin gabadheeda kale ayaa aad u jecel. marka waan arki doontiin markaa saxankooda u diyaarinayo. aad ay kala bedelan yihiin environmentka hataa ay cunayaan. midna labada environmentba way jeceshaa way cunaysaa, midna midka gamiga bas ayay cuntaa. maxaa aad labadooda aad different kala yihiin. midna fruitka ay jeceshahay, midna fruit ma jeclo. marka picky waaye, picky qof walba wuxuu rabaa in loo sameeyo waaye. that's why aan bacon maxaa la dhahaa turkey baconkan u sameynaya boil eggsna u sameynaya. haddana fruitkan ayaan jarjaran doonaa insha Allah si fiican ugu darsano quraacdeena. markana hadda juicekan iyo koobabka aan u shubaya juicekooda cuntadooda waan usoo diyaariyay everything. maxaa waaye koobabkan iyo saxamaha waxaa kasoo gaday Sam's Club ayagoo oo darsin actually ani ma soo gadin, aabahooda ayaa soo gaday. marka hope inaa idinkana hadaa lacala isweydiinaysin xagee kasoo gada, halka ayaan kasoo gadaa because waa very aaday ku help gareynayaan waa sad except gabadheeda furkeeda iyo koobkeeda iskuma eko because 4 koob la imaaday waa set of 4 weeyaan. 4 koob la imaaday iyo saxamahan oo 4 ay baaquliyaashooda iyo qaadooyinkooda everything. laakiin gabadheeda yar buluug waaye, waxay dooratay kuwa buluug waxay ku imaadaan orange, blue dark iyo kan hadda blueganito light bluega iyo orange iyo grey. so marka bluega oo bibiyaha dooratay. marka bluega oo bibiyaha waxaa waaye kan ilmaha yaryar loogu talagalay koobkooda. marka saa darteed ayaan koobka kale furkiisa kasoo fure. haddana waxaan sameynayaa weelashan faraha badan anaka dad waaweyn 2 qof leenahay aniga iyo ninkeyga, gabdhaheygana yaryar yihiin. marka waxaan alaab meesha wax igu buuxdo ayaaba dare waxaa sameeye maadaama aan haysanin space badan. waxaan ku fikiray inaan alaabta intaan qaado bugus ku xiro marka u baahdo le aan soo baxsado in yaroo anaga nagu filan bas aan soo reebto haduu ilaahay yiraahdo. waxaan sameynayaa kudigood waan soo wada bixinayaa bugus ayaa ku guri doonaa haduu ilaahay yiraahdo. kadibna meel aan dhigi doonaa wixii yaroo kasoo haran waa arki doontiin insha Allah. waa kan hadda bugskan kusoo guray bakeeriye iyo everything ma wada duubin marka bugsku waxaan kusoo guray laakiin hadhow ayaan dib idinka tusin doonaa.
and Clipkan mar hore ayaan duubay maadaama mar hore duubay waxaan jeclaystay una diyaar yahay inaan videogan kusoo daro Old Navy una ahaa storekan aan joogay ilmaha dhar ugu soo iibinaye and before oo Christmas uu ahaa bay ahayd la gaarin ay ahayd marka waxaan damcay inaan video kasoo sameeyo laakiin nasiib darro dhigi kariya videogii inaan sameeyo way ii suurtagali wayse marka waxaan rabay inaan idin dhaho aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada videoyaasheeda daawanaysiin fadlan taa igu cusub tahay subscribe ii saar comment ii reeb su'aal daaqtid hoos iigu soo reeb waxaad jeclaysan lahayd inaan soo sameeyo channelkayga inaad ku aragtid hoos iigu reeb way caawinaysaa marka mar labaad waxaan idin dhihi lahaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sanad cusub oo wanaagsan waxaan idin rajeynayaa inaa caafimaad iyo cimri dheer aad ku raagtiin anagana sidoo kale marka jimco mubaarak jimco wanaagsan aad iyo aad u mahadsantihiin mar walbana waxaan idinka mahadcelinaa waqtigiina qaaliga intaa waqtiga la kulmayno waxaan idinka tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye guys